dhaca warkaad ku daawanayseen wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in goordhow la soo gabagabeeyay shirkii saddex geesoodka ahaa ee madaxda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ay ku yeelanayeen gudaha dalkaasi. waxaa goordhow la soo gabagabeeyay shirkii saddex geesoodka ahaa oo madaxda dowladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea uga socday magaalada Bahardahar ee dalka Itoobiya, iyadoo madaxda ay qaateen wada tashiyo qoto dheer oo saacado badan qaatay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa shirkooda labaad diiradda ku saaray isbeddelka taariikhiga ah ee nabadda iyo isdhexgalka gobolka Geeska Afrika. sidoo kale waxay madaxda dib u eegis ay ku sameeyeen heshiiskii iskaashiga ah ee ay bilo ka hor ku kala siixdeen magaalada Asmara isla markaana xarunta u ah waddanka Eritrea. madaxda ayaa waxay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo madax banaanida dhuleed midda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaana ay muujiyeen taageeradooda adag ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adaheeda. waxaa kaloo ay ammaaneen dadaalka ay dowladda Soomaaliya ugu jirto soo celinta nabadgelyada iyo xasiloonida. madaxda saddexda geesoodka ayaa soo dhaweeyay dadaalada la doonayo in cunaqabataynta laga qaado dalka Eritrea, taasoo lagu wado in dhowaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka qaado cunaqabatayntii saarneed waddankaasi Eritrea. wixii warar arrimahaasi ku saabsan wararkeena ayaad ku daawan doontaan hadduu Ibraali ka noqdo. saddex qarax oo isxigxiga ayaa galinkii dambe ee maalintii shalayto waxa ay ruuxeen magaalada Muqdisho, iyadoo khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burburna ay u geysteen qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool magaalada Muqdisho. haddaba sida ay tahay xaaladda caafimaadka dadkii dhaawacyada ku noqday qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, warbixintan gaarka ay soo socota waxaa u diyaariyay wariyahayaga Sakariya Maxamuud Timacade. halkan waa isbitaalka Madiina ee ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. waxaa la geeyay tirada dhimashada iyo dhaawacii ugu badnaa ee waxyeello ka soo gaartay saddex qarax oo maalintii shalay lagu weeraray hoteelka Saxafi ee ku yaala isgoyska lambar 4. tirada guud ee dhimashada isbitaalka Madiina laga diiwaan geliyay waa 33 qof, dhaawacyada ayaa gaaraya 31 qof. arrintaasi waxaa ii xaqiijiyay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf Xasan oo aan kula kulmay xafiiskiisa. isbitaalka waxaana loo keenay dad badan oo dhaawacana loo keenay haddii kulli la isku daro wuxuu ahaay 37 aan raalliga ahada 32 ahaay oo 7 dhaawac fudud bay ahaayeen oo waan dhaynay, waa daaweynay, gurigoodaan u dirnay. 25 waa la seexiyey. marka dhinaca kale isbitaalka meesha qaybta oo meydka la dhigo na waxaa la keenay 31 qof oo meyd ah. gudaha isbitaalka waxaa ka muuqda howlo lagu daryeelaya caafimaadka dadka ee soo gaartay dhibaatada. waxaan la kulmay haweeney uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa. xilliga qaraxa uu dhacayay waxay fadhisay dhismaha hore ee xarunta dambibaarista dalka. waxay iga sheekaysay sida ay wax u dhaceen iyo dhibaatadii ka soo gaartay. waxaan fadhiisay ilaa horteeda saa markaan u soo fadhiistay nin askari wuxuu yiri aniga gabar kale isla socno, wiilka wuxuu geeyay kaas wuxuu dhahay midayna wax doon midayna fariiso oo sisiisu. waan fariistay, markaan saa u fariistay waan wax yar aan fadhiyay baa gawdu yeedha. gawdu marka yeedha igu dhigta aniga iyo wiilal askari oo meesha fadhiya ayagana. taas oo dhacday aadna waa u dhigba. aniga halkan bay iga gaadhay dhaawac weyn baa igu yeelay intaan kala go'an. tirada guud ee dhaawacyada la geeyay isbitaalada ayaa lagu qiyaasay ku dhowaad 150 qof. dhimashada way sii dhaafaysay 50 ruux. maanta Soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay iyo muddooyinkan oo dhan ay ku jirto takhaatiirtan ay ka shaqeynayeen way aragnimada aan ku leenahay arrintaasi waa yartahay caalamka cid u leh. marka dadweynaheena waxaan ka codsanaynaa inay ku kalsoonaadaan howlaha loo qabanayo oo howlo waaweyn ah oo qaliimadooda. dhinaca dowladdana waxaan ka codsanaynaa admaan isbitaalladeena oo publicada ah in qalabka iyo agabka isbitaallada la xoojiyo oo la casriyeeyo. cabsi iyo dareen badan kama muuqata halkan.
waa goobtii ay shalay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawac. shacabka ganacsiga iyo gaadiidka dadweynaha ayaa si caadi ah maanta u isticmaalayay. Zakariya Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. wagaagad buu mahadsan yahay waryahayaga Zakariya Maxamuud Timcade warbixintaasi nooga diyaariyey sida ay tahay xaaladda dhaawacda dadkii wax ku noqday qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho. bilo ka hor dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadii nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxay ka saartay garoonkii kubadda cagta Stadium Muqdisho. markii AMISOM laga saaray kadibna waxaa soconayay kulamo aan kala joogsi lahayn kuwaasoo laga xaajoonayay sidii dayactir iyo dib u dhis loogu samayn lahaa garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho. maanta caasimadda waxaa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyadoona kulankaasi uu ahaa mid looga tashanayay sidii dayactir loogu samayn lahaa garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho. Maxamed Juuriye Nuur ayaa warkan faahfaahinaya. kulankan waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya waxaa ka qayb galay guddiga Olombikada Soomaaliyeed mas'uuliyiin ka socotay madaxda xiriirada Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta hay'adda lagu magacaabo NIS Foundation oo iyadu loo xil saaray dhismaha garoonka dadan ee Stadium Muqdisho. gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqali Saciid Carab oo madasha ka hadlay ayaa sheegay baahida ay xiriirada dalka u qabaan in ay dib u helaan tuulada ciyaaraha dalka. diyaar u nahay inaan ku darsano maskaxdeena farsameyn soo dadka loo shaqeynaa waa anaga dadka wax loo qabanayna waa anaga kulligeen waxaan diyaar u nahay inaan ku wada noqono tuulada isboortiga cid walbaba inay ciyaar ku qabato tijaabada la sameeyay waxaan kulay ku dari lahaa inay kubadda cagta kaliya tijaabo sameeyay garoomo kale meesha ku yaala oo kubadda kale ay leedahay handballka uu ku ciyaari jireen aan sameeyay oo kale haddii ciyaar fudud ay tahay xiriirka ciyaaraha fudud ayaa galaya sidaas si la mid ah ayaa nooc kasta oo ciyaar ah hadday kubad cagta hadday tennis tahay hadday handball tahay waxaan u marnaa ayaga waxaan rabnaa marka nidaamkaasoo iswada fahamsan in aan ku sii wada shaqeyno hay'adda iyo wasaaradda oo wadata xiriiradii iyo olombikadii. Maxamed Juuriye Nuur, Universal TV, Muqdisho. wariyaheenna magaalada Hargeysa Xamse Cilmi ayaa ku soo warramaya in maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta banka dhexe ee Somaliland iyo shirkadaha isgaarsiinta iyagoo ka wada hadlayay kor u kaca iyo tayada shilinka Somaliland. agaasimaha guud ee banka dhexe Axmed Xasan Carwo oo warramaya TV-ga Universal ayaa ka hadlay doorka ay ka qaateen kor u kaca shilinka Somaliland adeegyada dahab iyo saad ee shirkadaha ka howlgala Somaliland. geesta kale maamulaha guud ee adeegyada dahab ee shirkadda Somtel Fuad Axmed Nuux ayaa ka hadlay adeegyada ay u qabtaan bulshada. kolkii loo sameeyay dahab in lagu shuban karo shilin Somaliland oo dadka maanta aan oran karo qof waliba waa haystaa dadkii saadka haystay intii haysatay iyo cusub oo qaadatayba waxay hawl yaraysay in shilinka wax lagu iibsado oo qofkii telefoonkiisa lacagtii uu culayskii uu qaadi kari waayay uu ku iibsado ninkii ganacsiga ana accountkiisa lagu shubo marka waxaanu qabnaa in ay tahay doorka ugu weyn maxaan ku raad joogteynta sicir barku inuu meelun horta isku taago sarifkii kor u socday qaybta ugu weyn waxa ka qaatay saadkaas iyo dahabka aanu ka dhignay in shilinka lagu qaato adeegay dahab wuxuu ka tirsan yahay shirkadda Dahab Shil Group waxaana lagu isticmaalaa lacagaha mobilka la isugu gudbiyo waxaanu saareen simkaarka Somtel waxaa muxuu ahaa macaamiisha u sahlnaa in ay ku isticmaalaan adeegyada maaliyadda ee ay doonayaan mobilkooda Somtel iyagoo ka heli kara goob kasta oo ganacsi isla markaana lacagaha loo soo xawilo ee uga imanaya dibadaha ay ku qaataan mobilkooda sidoo kale haddii macaamilku doonayo lacagta ugu jirta mobilkiisa inuu xawilo inuu ka diran karo marka wala adeegyadaas aanu qabanaa macaamiisheeda waxa kaloo jira waxyaabaha aanu qabanno hay'adaha caalamiga ah waxaanu kala shaqeynaa lacagaha inay u qaybinayaan dadka community-ga la caawinayo in mobilka loogu diro taasoo u sahashay macaamiisha halkii markii hore ay ka iman jireen magaalooyinka waaweyn ee gaari soo raaci jireen ee waqti kaga lumi jireen magaalada yimaadaan ee kharashna kaga bixi jiray hadda waxa suurta gashay in shirkadda Dahab Shil ay u fududeysay macaamiishaas in xarumahooda ama tuulooyinka degan yihiin ama deegaamadooda adeega lacagta loo dirayo loogu diro hay'aduhuna ay wixii ay bixinayaan lacag ka soo bixiyaan portal aan leenahay oo online ah oo systemkeeda ku jira oo ay ka soo gaarayaan kombiyuutaradooda runtii taasina waxay qayb weyn ka tahay waxyaabahan u fududeynay hay'adaha caalamiga iyadoo shaqaynta naga dhaxaysa. Xamse Cilmi, telefishinka caalamiga ah Universal, Hargeysa.
isla wararkii magaalada Hargeysa ayaan ku guda jirnaayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa magaaladaasi Hargeysa waxa uu kaga qayb galay xaflad ay ku qalin bedelanayeen arday ka baxday jaamacadda Alfa xarunteeda magaalada Hargeysa wariyaha magaaladaasi ayaa warkan noo soo diray munaasabad kooban ee jaamacadda Alfa u qabatay ardayda sanadkani ka baxaya jaamacaddaasi ee diyaarinaya shahaadada heerka labaad ee masterta ayaa waxaa munaasabad bilan ugu qabatay magaalada Hargeysa waxaana kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland qaar ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda xubno ka socday jaamacadaha dalka Malaysia ardayda jaamacaddaasi iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiraxmaan Maal iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada nasiib wanaag waxa ah maanta oo ilaa 2 sanadood laga joogo inaynu midna dalkii maanta halkan u fadhino in arday tiradoodu dhan tahay 50 arday ay ka qalin jabiyaan oo ku qalin jabiya master degree maanta oo kala ah 40 arday oo ku qalin jabiyay ama takhasuskoodu yahay MBA oo ah business administration ama markaynu Soomaaliya u bedelo maamulka ganacsiga iyo 10 arday oo ah healthcare management oo ah maamulka iyo maareynta caafimaadka marka tirada guud la isku geeyo madaxweyne waxa weeye waa 50 arday maanta laga bilaabana in shahaadadoodu ay tahay mid xalaal ah ayna ka mid noqonayaan aqoonyahanada reer Somaliland gaar ahaan kuwa shahaadooyinka digriga labaad ama masterka sita ambaliyo tii Burco waan ka qayb galay tii Hargeysa waan ka qayb galay maantana alxamdulillah waxaan ka qayb galayaa tii masterta Hargeysa marka taa waa wax lagu faano way ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaan inta qalin jabisay iyo waalidiintoodaba inay noqdaan kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca mar labaad waxaan leeyahay hambaliyo waxayna sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Boos Mire iyo xubin sare oo ka socotay jaamacadda dalka Malaysia congratulations everyone and I hope waan idin hambalyeynaya dhamaantiin waxaan rajaynayaa in madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada kaleba ay dhiirigeliyaan jaamacadda Alfa si ardaydeedu ay u helaan waxbarasho tayo leh oo heer caalami ah in international level aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradan iyo waayeelka soo dadaalay ee dhamaystay masterkoodii waxaan marlabaad ugu mahadnaqayaa gabadhii Najma ee dadaashay ee iyadoo dhaawacan wadatay tacliinteeda dhiirigelin ugu noqonaysa dadkoo dhan waxa weeyaan cilmigu waa ka in sida cilmiga loogu dagaalamo oo loogu dadaalo waa waajib waxa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaan u mahadnaqaynaa jaamacadda u diyaarisay saaxadani una keentay in jaamacadaha wayaaraga ahaa ee muddo dheer soo jiray in halkan ay u keentay maartay ku soo xiriiriso tacliintooda iyo cilmigooda iyo kororkooda halkan keento aad baan ugu hambaleynayaa jaamacadda Alfa wax kale hambaleynayaa runtii waalidiintiina iyo macallimiintiina dhammaantood waxaa leeyahay hawl adag baad soo gudateen waxaana maanta dee hambalyada gaar u siida idinka intiina qalijabisayna waxaan leenahay hambalyo ilaahay idinku guuleeyo nolosha ilaahay cimrigiina ha dheereeyo allah idinka dhigo kuwii dalkooga iyo dadkooga iyo diintoodaba ku anfaca cilmiga ay barteen dufcaddani ayaa noqonaysa tii labaad ee ka qalijabisa shahaadada heerka labaad ee